السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له سيتهين ما في عنتهين رمضان مبارك. رمضان كان رمضان كيس برواقي بش أيان ربك توينا إن شاء الله بإذن الله كريم. ما شاء الله تبارك الله وقت رمضان ما شاء الله وإن قرآن إلى آخر صدق iyo howlihii kale ayaa biisi la iskaga naqday waa ayahan maaragta biisi ayaan banaqday maasha allah tabaarakallah. alxamdulilah waxaan rajeynaa adinkan inaa iyo caafimaad qabtiin asxaabteeda quruxda badan. maanta waxaan aadnay maxaa la dhahaa biblioteega meesha buugaga. maasha allah sababtoo ilmaha waa in lala aqriyaa buugaga. marka insha allah gabadheedii yartahay anaa israacna maanta raxma cadde iyo aniga waaye. soo dhawaada buug akhrisay ka shidan tahay busal ay ka shidan tahay baash maaragtay laysku dhadhejinayo oo ilmaha waxay u baahan yihiin maanta kale anaga jimcay noo tahay jimcada maasha allah ayada badanka malahan iskool marna mar way leed marna malahan markaasoo kale waxaan aadnaa biblioteega meesha buugagan aadnaa amba tembareeriga si loo yaqaano haddaan khaldanayn ayaan aadnaa. marka badanka idinmaba soo duubo maanta baan isdhaha bal asxaabtaada baryahan waxuma duubini la wadaag oo duub insha allah inaa maanta aad aadeen meeshaan. soo dhawaada asxaabteyda quruxda badan maasha allah tabaarakallah. meeshaan ayaan marka meesha buugaga ayaan aadnay ee ciyaalka loogu aqriyo buugaga looga soo qaado buugagana markay rabtana meesha kusoo akhrisanay kay rabto maaragtay kuwa kalena waan celinaynay kuwa cusubna waan soo qaadanaynay. meeshaan anaga meel weyn waayo oo xaafadayna u dhow waxaa ku dhex yaal xataa qameetigii amba dowladda hoose ayaa ku dhex taalo meesha baasboorad laga codsado baasboorad laga qaato aa ku dhex taal maasha allah alxamdulilah. marka wax kasto ayaa isku dhex jiro meeshaan iyo buugi inaad ku akhrisato inaad ka qaadato ood ka maaragtay 3 wiig camal ay ku siinayaan oo marka kuley kaara maaragtay qof walba kaar uu leeyahay ilmaha loo subiyaa kaarkaasaad ku qaadanaysaa 3 wiig ayaad soo haysan kartaa adoo gurigaada joogaa. xataa farlingen wax la dhaho la samayn karaa. farlingen macnaheeda waa inaad markii 3 wiig kaa dhamaato aad cusboonaysiiso oo aad maaragtay adoon imaanin ayaad ka cusboonaysiin kartaa online-ka. markaasoo haddana wuxuu ku siinaad 3 wiig oo kale haddii aad rabto inaad sii haysato haddii kalena intaad iska soo celiso ayaad waxaad samaynaysaa mid kala qaadina. hadda meeshaan busal ay samaynaysaa busalkan wax laisku dhadhejinaa waa meelaha ciyaarta speltonka ilmaha ku ciyaaraan xayawaanaadka iyo dadka iyo wixii oo dhana macnaha joogo waxaas inta la kala ay subsadeen ayaa hadda laisku dhadhejinaa inta la kala jarjaro oo la kala daadiyo wax laisku rakib waxaan hadda markaas isku rakibaysa cunuga wuxuu ku fiican yahay maskaxda cunuga ayuu maaragtay soo dhisaa oo wuxuu ka caawinayaa wax walba xataa sanada leeyihiin waqti leeyihiin wuxuu ka caawinaa hadhowdii inuu waxyaalaha qaarkood isku ekays raadiyo oo maskaxda ka shaqaysiiyo oo wixii maaragtay markuu raadiyo waqti geliyo maskaxda fikiro cunugas fikradiisa iyo maskaxdiisa fiicnaanayso buug akhriska u fududaana. xataa buugaga ay jecel yihiin ayaga xayawaanaadkoo kale yaryar ee sanadyada maaragtay sanadkooda ayaa loo qaadaa maasha allah. marka guriga ayaad uga aqrinaysaa habeenkii aad u aqrinay waqti hesho haddaa maalinta waqti leedahay anoo kale hadda maalinta badanka biisi iska habeenkii aan waxyar markaa waqti helo aan la fiirfiiriyaa amba walaalaheeda la aqriyo maasha allah. marka sheekooyinkaasaad uga sheekayne buugii aad maaragtay wixii waa tustusay oo ku jira sawiradii iyo waxa ay ka sheekaynayaan yaa. mararka qaarkood markay seexanayso kalaad u aqrinaysaa sheekooyinka oo buugaga markaas wuu iska seexanaa cunuga sidaasay sameeyaan laakiin ani badan kama sameeyo waqtiga jiifka quraana aan maaragta u shidaa mararka qaarkood. laakiin ilmaha wadankan ku dhashay way ku weydiinayaan buug iyo aqri inaa iskuulka lagu soo sheegaa buugga iyo aqri ku leeyihiin wax yaraa marmar uga aqriyaa badanka laakiin quraan aqriyahooda quraanka ka fiicanaan dhahaa maasha allah. waayo anaga iskuul islaami shay dhigata gabadheeda waxa dhan way la socotaa sharciyada muslimka. marka maadaama markaasoo kale waxaa kuu fudud inaad dhahdo hooyo quraan waa ku seexan kartaa quraanka ku seexanaysaa iska dhaaf buugga waqti kale laakiin aan kaaga sheekayo
sheekada buugga aan kula aqriyo waqti kale. marka waqtiga jiifka qur-aankaasaan u shitaa maasha allah. maasha allah. marka buugagan ayaad u qaadaysaa sanadkeeda, qofka cunuga sanadkiisa intuu la egyaha uu soo doonana. hadduu ilmaha waaweyn ay yihiin sanadkooda macnaha yaallo 11 hadduu jiro, 12 hadduu jiro, 13 intuu adigu aqligiisa gaarsan yahay, sanadkiisa gaarsan yahay ayaa loo aqriyaa. marka maasha allah. hadda qaar ay macnaha kuwa ayada 6 jir waaye, kuwa maaragtay xoogaa adag oo xoogaa culusooda ilmaha ka xoogaa ka roroon ayaan u qaadaa sidii ay maaragta u akhriska ma ahan, akhriska ma gaarin ayada weli, laakiin sida ay busalkoo kale, busalka waxa la dhahaa la isku dhejinaa, sanadyo waaweynaan u qaadaa soo adag inay isku dhejiso. hadda waxaan waa biirka waa maxuu ahay Soomaali talo muxuu ku ahay biirkan, biiray dhahaan, biirka badda waa bahasha badda joogto, barafka aan dhahay suri barafka qaboobaha. marka maasha allah farxaalkeeda ilmaha way jecel yihiin, sheekadeeda ayaa looga sheekeeyaa. korneynka sidoo kale amba bakaylaha waan uga sheekeynaa, waa ii yaalaa buugagooda maasha allah. hadda iskuulkaaba laga soo siiyaa. marka kaala arag waaye waxaas ilmaha marka maskaxda u dhisaa, maskaxda dhisay ay ka faa'iidayaan, akhliga uu kordhaa, waxaas inay bartaan. yaa hadduuna weli cunuga akhris gaarin, adiga u akhri, uga sheekay. sheekada dhan mararka qaarkood waxay kala socdaan youtube-ka, xataa waa laga heli karaa. iskoolka waa loo shidaa. marka maadaama iskoolka loo soo shiday, waxa dhan oon tusayna waa wax iskoolka laga soo tuso, oo iskoolka waxa dhan way isku xiran yihiin. marka iskoolka looga soo sheekeeya, adigana aad hore ugu sheekayso ood u sii wado, wayba hal ayba u taqaanbo. haddana hadda waxay qaldo waxay leedahay maya saasoo ahay, intuu maray xaggoo aaday ayadaab kuu sheegay, waayo way la socotaa. iskoolka laga baraha ilmahana waqtiga yaririn waa waqtiga ay wax qabtaan maskaxdooda. maasha allah tabaarakallah. marka hadda biirkan waa biir cunugiisa iyo asaa ciyaarayo. meeshaan bignig ay joogaan, cuntay maaragtay meeshaan bignig keensadeen, cunugeeda la ciyaaraysaa. waxaas sheekooyinkaas waa wax maskaxda maasha allah usoo dhisaya cunuga oo ay jecel yihiin. waxaan baaraa bukuuga ah amba banaanka la aadayo, wax lagu soo cunaa, cunto lagu samaysanayo. yaa guryahan baadiyaha aaday u heshaa gabadheeda, way ka sheekay leed waxaan. marka ayadoo Netherlandna way macnaa ayaga uga sheekeeyaan youtube-kaaba looga heli karaa oo looga shidaa. ana waan uga sii sheekeynaa, Netherland kale ugula sheekeynaa, uga akrinaa. marka naagta intay aadeen biirkii hooyadiis, magacay leeyihiin, magacood biirka intuu aaday cuntay cunaayaan. hadda cabitaani u samaysa hooyadeed inaad dhahdeed waayo, oo saas aa ula socodsiisid wixii ayada sawir ahaan u arkayso. qoraalkina waa ku yaalaa. marka qoraalkina waa kaas, halkaas ka akhrisanee, qoraalkina waa kaas. marka maasha allah. marka ilmaha saan haddii xiska looga soo dhiso, maskaxda looga soo dhiso, way u fiican tahay. waxyaalaha qaarkood oo buugaga maskaxda laga shaqaysiiyo aaday u fiican tahay, oo maskaxda usoo dhisaysa. way fikira cunugu xisaabtamaa, wuu fikira kan intuu ku fiican yahay. hadda busalkoo kale kaal arag kuwa adag iyo ani aan isku aadi karnay isku aadisaa maasha allah tabaarakallah. kan intuu ku fiican yahay xis aqliyanay u baranayaan. kan intuu ku fiican yahay kan intaa gelinay hay hooyadan iyo cunugeeda maxay ka sheekeynayaan, halkay joogaan, maxay dooneen. sawirka iyo waxa iyo qoraalkii ayaa iskeenayo. sawirkina way ujeedaa, qoraalkina waa loo akhrinayaa. mararka qaarkood ayagoo video baa la helaa, oo haddaad raadsato aad heli kartaa. marka kanaha kaala arag qudaar iyo waxbay u samaynaysaa, hooyadaa cunugiisa garaynayso amba caawinayso. yaa marka insha allah waqtiga aad haysatid oo maaragtay 10 daqiiqo allah ka dhigo ugu yaraan 20 geli cunugaaga. inta kale quraan ha lagu akhrisado ilaa waa maalin Ramadaan.
iyo hawsha kalaaba buuxdo afur kariskii iyo adduunyada iyo nadaafadiyaaba buuxdo lagu daalanya maasha allah tabaarkallah. laakiin ayadana ilmahana way u baahan yihiin inaan waqti guriga joogaan weekendiga satarda maalinta sabdida iyo axadda waxay aan ka caawi karna waxyar hooyo keen soo qabo buugi waxyar aan isla dhiganay aan maba aqaana hooyo ma caawi kartaa hadda cunugan dabaalay la joogtahay meel biyo biyo waay ee hooyadu kula dabaalanaysaa cunugeeda kula ciyaaraysa marka hooyo anima aqaaniye waxaan ii sheeg bal haddaan dhaho ayadaa ii sheegayso kan waaye ayad akhriskii ma taqaan laakiin macnihii taqaanaa muxuu ka wadaa hadda busalka waa kaasaa saan adegeed bahalkan iyo meeshan waa meesha busalka amba geedaha laysku dhedhejinayo busal la yiraahdaa inta taqaano wayba taqaanaabo markaa saxaabteyda quruxda badan rabadaan mubaaraga idin leeyahay rabadaankiisa cimri dheer iyo caafimaad kuwa ku gaaro laga aqbalo laga ajiibo ducada laga aqbalo maaragtay allah nagu daro oo ilaahay jeclaado allah nagu daro anagoo dhan muslimiinta oo idil kuwa laga aqbalo allah nagu daro loogu dembi dhaafo kumanaan kala xoreeyey allah nagu daro aamiin yaa rabbi walaalahay waa idin salaamaa aan wax khayr qabo kuwa iska maqlo insha allah biidni illaahi kariim aad iyo aad ayaan idin salaama hadduu alla idmo intaasaan idinla wadaagayay beryahan dhaa asxaabtaada codkaada ma maqlin insha allah marka waan ku faraxsanaa inaan maanta dib isugu soo noqono hawada oo aan dib ilaahay ii suurta geliyey in aan idinka maaragta codkayga aada maqashiin ana aan codkayga idin maqashiiyo ilaahay maaragta suurta geliya ma hadda iskale marka aadaan ugu faraxsanaa asxaabta quruxda badan adinkana waxaan rajaynaa inaad maaragtay leega iyo commentiga iyo subscribe-ka inta igu cusub ii soo saari doonto inta kalena ay leega ii saari doonto iina sii sheergaray doonto ilmahana ha loo faa'iideeyo adigana weynna faa'iideyso buugga haddaaba akhriso adigaa weyn oo aad xoogaa maskaxda soo kiciso amba kitaabka qur-aanka aad akhrisato akhriskaas badan wax badan ayuu faa'iidaa maskaxdu ayuu u fiican tahay inaa waxa aa akhrisid kitaabka qur-aanka ha noqoto inaad buugaga sheekooyinka akhrisato ha noqoto in aad maaragtay aduu qoraalku maskaxda ayuu nadiifiyaa amba maskaxda ayuu sii fududeeyaa oo shaqada maskaxdu waa inay wax akhrido waa inay wax ku mashquulsan tahay insha allah bidmillaahi kariim saxaabteyda quruxda badan waxaan ilaahay isaga rajaynaa mar kasto hadda iyo mar kaleba inaan ilaahay soonka nabad noogu dhameeyo nabad ilaahay waa noogu bilaabay ilaahow rabbi raxmaan inta dhimana nabad noogu bilaawo aamiin yaa rabbi saxaabteyda aad ayaa idin jeclahay adinkana waa ogaa way jeceshihiin waan idin salaamaa waxaan idin leeyahay rabadaan mubaarak mar kastaba rabadaankaana khayrkiisa allah na waafajiyo dhibaatadana allah naga qabto insha allah bidmillaahi kariim saxaabta quruxda badan haye hadda intaas ayaan idinkaga tegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu